kulanti wanaagsan saaxiibayaal markaan waxaa eegaynaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Soomaaliya sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo xilkas ah oo lagu kalsoon yahay ciidamo ka amar qaata madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka tirsan ciidanka madaxtooyada ilaaliya ayaa maanta waxa ay la wareegeen xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ku dhex yaala gudaha madaxtooyada Soomaaliya dadka aan la hadalna waxay sheegeen in ciidankan oo wata gaadiid dagaal ay saaka tageen xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa lagu amray shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha ku sugnaa in ay guryahooda aadaan iyadoo sidoo kale ciidankii koobnaa ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ka amar qaadanaya xafiiskiisa joogay iyagana la bedelay oo goobta laga waday waxaana la dhigay ciidan kale oo madaxweyne Farmaajo ka amar qaata sababtu waxaa lagu sheegay in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu madaxweynuhu amray inuusan tagi karin xafiiskiisa dadka aan la hadalnay sidoo kale waxay sheegeen in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ciidamo dhigay guriga uu degan yahay ra'iisul wasaaraha oo ku yaala meel ka mid ah madaxtooyada gurigan oo xeyndaabka madaxtooyada ku yaala waxaa dul degan ciidan ka tirsan kuwa madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan ciidanka ilaalada gaarka ah waxaa la sheegay in wax dhaqdhaqaaq ah wadin laakiin ay yihiin ciidan aan lagu aqoon aagaas ka tiro badan ciidamadii hore u joogay guriga ra'iisul wasaaraha waxaana la aaminsan yahay in halkaas xabsi guri uu rabo madaxweynuhu inuu kaga dhigo ra'iisul wasaarihiisa xaaladda ayaa aad u qasan waxay sidoo kale wararku sheegayaan in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu amar ku bixiyay in wasiirada ku dhadhow ra'iisul wasaarihiisa aysan soo gali karin madaxtooyada iyagoo wata gaadiid dagaal iyo ciidan wasiirada la amray inaysan ka soo gudbi karin iyagoo ciidan wata xaawtaako ceelgaabta iyo sayidka waxaa ku jira wasiirka amniga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur wasiirka cusub ee xalal loo magacaabay gaashaandhigga ama loo wareejiyay wasiir jaamac sidoo kale waxaa qayb ka ah xubno kale oo wasiir ah oo uu ku dhow ra'iisul wasaaraha oo ku jiro wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxaa eeriyada madaxtooyada iyo banaankeeda lagu arkayaa gaadiid dagaal iyo ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan kuwa madaxtooyada kuwaas oo dhankooda wada dhaqdhaqaaq ciidan arrimahan oo dhan waxay ku soo beegmayaan iyadoo xalay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo war qoraal ah uu soo saaray oo ku sheegay inuu shaqadii ka joojiyay ra'iisul wasaarihiisa kadib markii uu sheegay inuu soo galay tuhun la xiriira in uu sameeyay dhulboob ay ciidamada badda Soomaaliya ay lahaayeen kuwaas oo ku yaala degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir sidoo kale madaxweynuhu waxa uu taliyaha ciidamada militariga Soomaaliya ku amray in shaqada laga joojiyo Cabdixamiid Maxamed Dirir oo ah taliyaha ciidanka badda oo isagana hore u eedeeyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble shaqo ka joojinta Dirir waxay dad badan u arkaan in madaxweyne Farmaajo uu ku abaal dhacay maadaama markii hore la aaminsan xafiiskiisa laga abaabulay eedeyntii loo jeeday ra'iisul wasaare Roble wixii warar ay ku soo kordha xaaladda magaalada Muqdisho waxaan ku soo gudbin doonaa wararkeena dambe haddii Allah uu dul-eedmo waxay dad badan qabaan in uu madaxweyne Farmaajo cagta saaray dhab military